kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsha Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idii hayna waxaa kamid ah Pjanic ayaa dalabyo ka helay Chelsea, Juventus iyo PSG. Milan ayaa loo soo bandhigay xidigaha James iyo Coutinho. LA Galaxy ayaa xoojinaysa dalabka Gareth Bale. intaasi waxa ay qodobadii warka haatan ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan. Pjanic ayaa dalabyo ka helay Chelsea, Juventus iyo PSG. Chelsea ayaa tartanka la kulmaysa kooxaha kale ah Juventus iyo Paris Saint-Germain oo baadigoobayaan saxiixa ciidanka Barcelona ee Pjanic. Laacibka khadka dhexe ayaa u badan tahay inuu ka tago Barcelona iyadoo Barca isku dayaysa inay yareyso mushaaraadka faraha badan oo ay qaataan xidigaha kooxda qaarkood. Spain ayaa shaacisay in maamulka kooxda Barcelona iska iibin doonto xidigaha kale ah Pjanic, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho iyo ciyaartoy kale oo iskaga tagi doonta Barcelona xagaagan. Pjanic ayaa 12 bilood ka hor ka soo tagay kooxda Juventus. Heshiis ku bedelasho ayaa laga yaabaa inuu ka tago kooxda ka dhisan Nou Camp, balse kooxaha PSG, Juventus iyo Chelsea ayaa laga tiriyay inay yihiin dalabyada ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan Pjanic kaasoo xilligan 31 jir. Milan ayaa loo soo bandhigay xidigaha James iyo Coutinho. qodobkaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen. kooxda AC Milan ayaa la soo bandhigay fursad ay kula saxiixi karto xidigaha kale ah James Rodriguez iyo Philippe Coutinho sida laga soo xigtay Tutto Sports. maamulka Everton ayaa diyaar u ah inay James Rodriguez kula soo wareegto adduun dhan 8 milyan oo euro ah, halka ay kooxda Barcelona ay diyaar u tahay inay qasaaro weyn ka soo gaarto maalgashigeedii ugu horeeyay ee ah 120 milyan. AC Milan ayaa haatan fiirinaysa in ay soo gudbiso dalab rasmi ah oo ku aadan labada xidig iyadoo oo kooxda ay isku diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub ee 2021-2022. Los Angeles ayaa xoojinaysa dalabka Gareth Bale. kooxda ka dhisan horyaalka Mareykanka ee LA Galaxy ayaa xiiseynaysa inay la soo wareegto laacibka kooxda Real Madrid ee Gareth Bale. ciyaaryahanka Real ayaa ka tagay kooxda Tottenham Hotspur kadib markii uu soo gabagabeeyay qandaraaskiisa amaahda ah oo kaga maqnaa kooxdiisa. Gareth Bale oo xulkiisa qaranka uu ka haray tartanka qaramada Yurub ee Euro 2020 ayaa lagu wadaa inuu dhaqaaqo Mareykanka. xogta ayaa sheegaysa in Bale uusan ku jirin qorshaha tababaraha Real Madrid ee Carlo Ancelotti xilli ciyaareedka soo socda. Solskjaer ayaa wada hadallo la yeeshay Martial. warbixintaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar. tababaraha kooxda Man United Ole Gunnar Solskjaer ayaa wada hadallo qaas ah la yeeshay weeraryahanka reer Faransa ee Anthony Martial. weeraryahankan ayaa u adkaystay xilli ciyaareed liitay inkastoo Man United ay ku dhameysatay kaalinta labaad ee Premier League isla markaana ay gaartay finaalka Europa League iyadoo Man United ay ku dhowdahay saxiixa xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho. Express ayaa sheeganaysa in Solskjaer uu kala hadlay Martial mustaqbalkiisa kooxda. tababaraha reer Norway ayaa u sheegay maamulka kooxda bishii May in uu u arko Martial in uu yahay ciyaaryahan muhiim u ah kooxda. wuxuu rumaysan yahay in ay iskaashan karaan Sancho laakiin xilligan kuma fiicna iibinta Martial. Solskjaer ayaa u xaqiijiyay Martial booskiisa kooxda koowaad ee xilli ciyaareedka dambe. Chelsea ayaa hogaaminaysa saxiixa Jules Conte. qodobkaasi waxaa eegaya Cabdiraxmaan Maanka. Chelsea ayaa u dhaqaaqaysa saxiixa daafaca kooxda Sevilla ee Jules Kounde. Sevilla ayaa warinaysa in Chelsea ay xilligan ay tahay kooxda ugu cadcad saxiixa 22 jirkan kadib xilli ciyaareed kale oo qurux badan. Jules Kounde ayaa sidoo kale dhawaanahan si maldahan u sheegay inuu doonayo tartan cusub maadaama uu sii horumarinayo farsamadiisa kubadda cagta. waxaan joogaa koox weyn waqtigan ayuu yiri xidigan ka hor guuldaradii xal Faransa ka soo gaartay Switzerland, balse waxaan doonayaa inaan ku biiro koox weyn oo awood ku leh tartamada qaaradda Yurub. waan arki doonaa waxa mustaqbalka dhici doona laakiin wax waliba waqtigooda ayaan sugayaa. qandaraaska Jules Kounde waxa uu dhacayaa 2024 laakiin kooxda Chelsea ayaa kula tartami doonta kooxaha Manchester United iyo Real Madrid saxiixa Kounde. Arsenal ayaa wali kula joogta dalabka Andrea Belotti. Arsenal ayaa ka mid ah kooxaha muujinaya signalka xiisaha ay u qabaan xidiga kooxda Torino ee Andrea Belotti. weeraryahanka ayaa sidoo kale diiradda u saaran kooxaha AC Milan, Napoli iyo Roma sida ay qortay Tutto Sports. wargeyska reer Talyaani ayaa sheegaya in 27 jirkan ay hal sano uga hartay qandaraaskiisa kooxeed iyadoo maamulka Torino ay rajeynaysa inay ka soo ceshato xoogaa lacag ah saxiixa Andrea Belotti. kooxda ka dhisan horyaalka Talyaaniga ayaa ku farxi lahayd inay ku iibiso Andrea Belotti qiimadan 34 milyan xilli ciyaareedkan. Arsenal ayaa mar laga soo diiday dalab ay ka gudbisay xidigan sanadkii 2017. Andrea Belotti ayaa kooxdiisa Torino uu ku biiray sanadkii 2015 waxa uu heshiiskiisa ku eegay 30 Juun ee 2022. Raheem Sterling ayaa ka tagaya Manchester City. qodobkaasi waxaa eegay Cabdiraxmaan Maanka.
xidiga kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu ka tago garoonka Etihad Stadium xilli ciyaareedkan. Ciyaaraankan heerka caalami ee dalka England ayaa la sheegay inuusan ku faraxsanin maamulka Pep Guardiola iyadoo qorshaha bixitaan ee laacibkan loo adeegsan karo dalabka Harry Kane, wuxuuna haatan xiise ka helayaa kooxaha kale ah Barcelona, Real Madrid iyo Paris Saint-Germain. Laakiin Manchester City waxay dhameystiraysaa heshiiska Jack Grealish. Raheem Sterling wuxuu ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu weerarka fiican Yurub sanadihii la soo dhaafay. Manchester City waxay u muuqataa inay diyaar u tahay inay laacibkooda ku fasaxaan adduun dhan 60 milyan xayagan. intii aan kusoo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsha Sports TV anigoo Munac Ismaan waxaa idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.